Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada video cusub. Maanta waxaan sameyneynaa Apple ID yacni dhammaystiran. Gaar ahaan wuxuu quseeyaa dadka ku nool wadamada Africa ama wadamada Apple ID-guna ka isticmaalin paymentiga. Marka waxayaan hadan ku daalin Apple ID-ga sida loo sameeyo 0 ilaa halka ugu dambeysa ayaan isla eegi doonaa. marka koowaad waxaan sameyneynaa Gmail baan sameyneynaa. So waan dedejinayaa Gmail-ka waxaan maleynayaa badan ka sameyn taqaanaan oo qof kasta uu isagu sameysan karo. khadkaad muddaaniya yar adag yahay intaan ka faastisanaado waan rajeynayay. marka waxaan leeyahay create new account baan leeyahay. Gmail cusub baan sameyneynaa. Gmail-ka cusub markaan sameyno kadibna Apple ID cusub ayaan sidoo kale sii sameynaa create account. marka halkan magaca doonta ayaad gelinaysaa. aniga waxaan iska gashanaya magacayga Abdifataax Cusmaan. xaggan waxaan leeyahay Abdifataax 70 aan leeyahay. passwordka waxaan doonaan ka dhigi karaa. waxaan leeyahay passwordka mom dad at 70 يعني saad u aragtaan halkan mom dad at 70 يعني waa passwordka Gmail-ka waan yara dedejinayaa oo yani inuu qof kasta Gmail sameysan karo ayaan malay. marka xaggan waxaad gashanaysaa wadanka aad joogto iyo lambarkaaga. marka ani lambarkayga ayaan gelinayaa waan qarin doonaa. marka wadanka ayaad detectisa automatically badanka ku sameynaya. marka waa inaad yani aad marka lambarkaaga halkaa geliso. halkan waa optional. waxaad sameyn kartaa recovery Gmail ayaad sameyn kartaa. marka ani kanaan gelinayaa at yani haddii aan hadda u baahdo oo kale at gmail.com. halkan dayga waxaan dhahnaa 01 halkan monthga 01 January. halkan waxaan dhahayaa 1994 gender waxaan leeyahay male. next marka waxaan oo dhan adi markaad sameysanayso waa inaad yani waxaad yani informationkaaga fully aad u geliso weeyaan. marka kan waa Gmail-ka inaad markaad sameynayso. xaggan shaashada waxaa inoo yaala waa mobilkaygii si aynu uga aragno badanka muxuu ahaa si aynu uga aragno waxa marka aynu ku sameynayno. haddaan halkan setting-giisa tago waad aragtaa halka wuxuu ku leeyahay sign into your Apple ID. marka Apple ID kaygu ma jiro laakiin aan sameeyo ayaan rabaa. halkan waxaad aragtaan in wuxuu yiri okay automatically wuu ii sameeyayba. markaad tacsiya 70 wuu ii sameysan yahay lambarkii wixii waxaan isla markaa wuxuu kusoo diray kooriya. marka hadda waxaan sameynayaa inaan bilaabo Apple ID kan muxuu ahaa marka Gmail buu ahaa marka hore. marka hadda automatically waxaan bilaabayaa waa Apple ID. markaad Apple ID bilaabayso waxaad ku qoraysaa Apple ID waad ku qori Apple ID. markaad ku qorto page-kooda hore ayaa kusoo baxaya ku qoran tahay appleid.com. click ayaad siinaysaa. markaad click siiso waxaad sameynaysaa Gmail-kii aad sameysay ayaad markaa gelinaysaa si aad ku cusub u sameyso. marka hadaan halkan saa ku dhaho kanaan naga qaliyo waxaan leeyahay create a new account baad leedahay. automatically halkan kaaga soo baxayay laakiin adiga inaan ku tusayaan sababtaas ayaan u leeyahay create. laakiin marka kaaga soo baxo Gmail-kaaga ayaad gelinaysaa. haddaad Gmail-keena xusataan waxaa weeyaan halkan waa Abdifataax 70@gmail.com. copy baan dhaxsanayaa. halkan waxaan leeyahay radio account Abdifataax aan leeyahay kan Cusmaan. halkan wadanka ku jooga Ethiopia. waxaan leeyahay birthday waa 01/01/1994 saasaan soo geliyaan malaynaya. halkan Gmail-kayga ayaan kusii deynayaa. halkan passwordka waxaan leeyahay marka Apple ID-ga markaad joogto markasta xarafka koobaad waa in weynaada passwordkaaga. marka waxaad dhahaysaa mom dad at 70 bay ahayd baan malaynayaa.
mom dad at 70. marka halkan wuxuu yiri phone numberka Ethiopia baan dhahayaa. marka halkan adiga wadankaad joogtay lambarkiisa ka raadsatay markaas ayaad gashanaysaa +25 halkan Ethiopia meelaan ay ku jirtaa wakaas kadib lambarkayga ayaan gelinayaa marka ayaad gelin doontaa taxi me baan leeyahay halkana marka waxaad sameynaysaa halkana qoraalka yar ayaa isna gelinaysaa waaweyn inuu 4 time malen r marka uu kugu soo celinayaa haddii ay wax khaldan yihiin marka kan ayaan khalday waxa kale way saxan yihiin waxaan sameynayaa marka waxaan leeyahay 2t aad uga fiirsada 5s waxaan haddayna ii saxan tahay marka halkan marka la joogo code ayuu wuxuu dirayaa gmailkii ayuu code inoogu dirayaa marka waa inaan gmailkeen intaan tagno aan code ka soo qaadno waan aragnaa apple maxay noo soo kala dirba apple oo ka yimaada bahalkii muxuu ahaaye code ay noo soo direen ayaa inoo soo galay codeka koobaad daasanaysaa kadibna paste ayaad dhahaysaa ama mid ayaad u qorqori kartaa kolba aad saad rabto kolba mid ayaad qori kartaa waxaad leedahay continue ayaad leedahay muxuu kula verify your phone number to the finished setting up marka lambarkaygii ayuu xagan igu diray dana code haddaad halkan aan sidan in dhaho aan tago mobilkayga xagan markaan mobilkayga tago waxaad arkaysaa halkan inuu message soo galay oo leeyahay your Apple ID verification code is marka verification code kaas ayaan gelinaynaa waxa weeyaan 23 maxaa ku xiga 2335 96 marka enter baan leenahay marka codekii noo soo galay oo mobilka soo galay isagana waan gelinay halkan marka imika verification mobilkana way noo dhamaystiraya waxaad moodaa in hadda si fiican noo socdo marka halkan marka aynu joogno waxa aynu sameynay Apple ID ga ayaan sameynay oo Apple ID ga hadda uu samaysan yahay waxa inoo dhimanaa mobilkeena markaa gelino marka waxaan sameynaynaa aan mobilkeena u gelino mobilkii baan tegaynaa kadib settingiga ayaad imanaysaa kadib waxaad leedahay sign in baad leedahay haddaba hadaad xusato gmailkeena sameyn waxaa cs cabdifatah 70 at gmail.com waxaan waa testing waxaan caadi u isticmaalay ma waa waxaan inaan ku tuso aanuna rabo marka waxaan dhahayaa passwordkan geliyay wuxuu ahaa passwordkii mom mta hore way weyn tahay waan ii sheegay mom markaad Apple ID isticmaalayso markasta waa inaad mta hore weynaysiisaa mta maaha yacni xarafka u horeeyaan ka wada faan dad at 70 yacni passwordkaaguna inuu strong ahaado way fiican tahay marka halkan passwordka aan gelinaya in ma tusayo wuu qarsan yahay marka haddana wuxuu ii diray wuxuu ku leeyahay lambarka 72 u dambayso automatically isaga soo qabanaya maadaama codeki uu soo galay mobilka isaga soo qabanaya automatically soo qabanaya marka halkan wuxuu ku leeyahay terms iyo maad aragtay wixii emailka iyo terms and conditions ka mobilka iyo emailka waa in aqbasha iCloud-ka information-kaas oo dhan yani waa shay ka dheer ma akhriyayno waa agreement iska wada agreement leenahay marka iCloud-ka ayuu ku xirayaa marka hadda markuu inoo dhameeyo iCloud xirida waxay noo soo galaya barti banaaneyd ee maad aragtay uu lahaa gmail kuma jiro Apple ID kuma jiro inuu Apple ID soo galo waan yara sugaynaa xiro daqiiqada hadda maxay weydiinayaa enter the iPhone passcode the passcode you use to unlock this iPhone will also be used to access every passwords and sensitive data you store in iCloud merge don't merge marka wax kala maaha wuxuu ku weydiinayaa passwordka aan mobilka ku isticmaasho marka halkan waxay nooga muuqataa in gmailkeen hadda sameynay in Apple ID-gana ku sameynay inuu halkan inoo soo galay waan aragnaa
haddaba maadaama uu inoo soo galay ma aha uu shaqeynayaa Apple ID. haddaba Apple ID gu inoo sameeyay laakiin haddaan imika tago Play Store-ka haddaan store-ka tago App Store-ka haddaan tago oon is dhaho soo download gareysaa application yani ima yeelayo. tusaale haddaan imika kana iska dhuftaan bali soo download gareeyo weydiin Apple ID ga haddaan dhaho CS Abdi Fatah 70@gmail.com haddaan dhaho aan passwordkina mom.dad@70 aan dhaho automatically iguma soo download gareynaya application-kii. sababtuna waxaa weeyaan wuxuu u baahan yahay in review lagu sameeyo oo Apple ID ga maadaama isticmaalo payment iyo waxyaalaha isticmaalo inaad location-kaaga waxaagaas oo dhan aad geliso. marka halkan waad aragtaa meesha ay ku qoran tahay ku hayo review-ga ayaad kliksanaysaa kadib wuxuu ku keenayaa page kale. markuu halkaa ku geeyo waxaan sameynaynaa marka in yar baan xaggaas ka turkinaya iska dhiga marka fake baan u isticmaalayaa maadaama aan joogo waxaan joogaa Ethiopian Apple ID ma garanayo oo payment iminaamin ma sameyn karayo. marka waxaan isticmaalayaa fake baan isticmaalayaa. waxaan marka halkan waxaan ku qoranayaa ama Canada ama waxaan doonaan isticmaalayaa United States of America. waxaa Canada iska isticmaalaya fake address balad Google ka ayaa ku qoranaysaa. marka waxaa jira fake address generator baa jira. marka kanaan click siinaya kolba kii ku soo baxa kumanaan baa jira. marka muhiimadda waa inaan fake address aan qaato. marka haddaad wadan joogto oo yani wixii soo dhan ay ku dhameystiran yihiin waad isticmaali kartaa sida Europe, Asia ka badankeeda iyo North America oo dhan. marka hadda waxaan leeyahay Canada ayaan ka dhiganayaa. halkan waxaan ka dhigayaa Canada aan ka dhiganayaa. marka Canada aan select karaysaa halka aragtama waxaan leeyahay marka agree the terms and conditions next baan marka leeyahay xagga kore next ayaan taabtay kadib wuxuu i weydiinayaa marka information. halkan marka information-ka fake ayaan gashanaya. marka halkan waxaa ku arkaa inuu magacaygii ka muuqdo street buu i weydiinayaa. marka street-ka waxaan gelinayaa street-ka oo kana aad aragtaan ayaan gelinayaa. waxaan leeyahay marka street 2310 waxaan nagu ma akhrin karnaa wall bridge wall bridge. adeer ingiriiska haddaan ku tumano waa iska dulqaadanaysaan. loyalist haya RD waa optional kan waa iskaga boodaya. required waa citida waa required. waxaan leeyahay bell waxaas adeero kolba adikii kusoo baxda markaad qortay ayaad ku qoraysaa. province-ga waxaa halkan ku ogan karnaa Ontario miyay tahay waxaas waa tan aan hayno iyadana haye. waxaa kaloo inoo dhiman postal code baa inoo dhiman waxaa weeyaan K8 waxaa tala maanta 1L9 haye. numberkana waxaana dhan waa fake weeyaan sheeko wada fake aan isticmaalna. marka 113 haye 967 1558. so waad artaa information-kii oo dhan oo fake ayaan geliyay kadib waxaan leeyahay next. so Apple ID-ga iyo waxyaalaha la sheego waa inta. in badan baa laga yaabaa in dad badan lacag lagaga qaaday. waxaa la sameeyaa waa inta weeyaan yani waxaa laga yaabaa inay 10 minutes ku qaadato. aan maadaama yara sharaxaad ku yar daday u raagaya laakiin 10 minutes ay ku qaadanayaan. wuxuu kale Apple ID complete CS Abdi Fatah 70@gmail.com can now be used to access all Apple service. marka wax kasto service oo free Apple leedahay ani hadda waan isticmaali karaa. continue baan leeyahay. app kasto aan hadda download gareysay dhaho wuxuu weydiinayaa un kaliya inaan password-kayga un kaliya aan isku dayana application looga kick baan ku qorayaa xaggan waa application yar oo messenger oo kala yani WhatsApp kala lagu wada sheekaysto xilli hore ay ugu dambeysay laakiin waxaan rabaa un kaliya
aan ku tasti karay. Hadda waxaad aragtaa markaas CS Cabdifataax Gmailkii waxa ka hoosay noo soo saaray install baan leeyahay. Waxaan gelinayaa mom.dad@gmail I'm so sorry @70 hadana wax khaldin passwordkana khaldan baan maynay. Marka @gmail ma @70 weeyaan already we download gareeyay. Wakaas application-kii hadda wuu bilaabay download-kii wuu bilaabay. Halkan waad ka muuqataa inuu kick inay noo socdo. Waxa aynu isticmaalaynaana waa hadda kii aynu sameynay Apple ID-ga. Marka Apple ID-ga saas ayaa loo sameeyaa. Haddii wax yar oo dot ay ku jirto ama qaabka aan u sharaxayo yara degdeg ah, waxaan sameyn karaa ku step by step oo ka yar dabacsan kan. mar haddaad intaa nala soo daawanaysay aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay. Fadlan haddii aad ka faa'iidaysatay, dad badan oo waxaa jira intan yar lacag laga qaado si ay iyagu u samaystaan u share gare. aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashadaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.